السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. muuqaal kale maalin kale qurux badan oo walaalkiin oo miskiinka Allah waxaan rajeynayaa inuu caafimaad qabsado anaga caafimaad qabo alxamdulilah ama intaan muuqaalka guda gelin aan ku salina xabiibkeena Maxamed sallallahu alayhi wasallam maanta muuqaalkeena wuxuu nooga imaanayaa magaaladan Malaga koonfurta Spain daawasho wacan sanadka markuu ahay 711 federaaleynta Iberia ama qayb ka mid ah loo yaqaano maanta Spain oo howsheeda lagu guda jiro sida Yurub inteeda kaleba ha hakad geliyay qabsashadii muslimiinta hanaanka islaameynta ee dhacay qarnigii 8 iyo 9 ee ay waday taliskii Umayyawiintu waxa ay la kulmeen iska caabin ka ugu imaanayay kooxihii qabaa'ilka iyo weliba dhaxal sugaha boqortooyadii gaalada oo caasimadooda ahayd Aragon ama maanta loo yaqaano magaalada Barcelona inta ugu badan dadka wadankan waxay gabaad ka dhigteen buuraha dabcan afartii dhinac baa laga difaaci jiray saarkan weli meesha ugu sareysa xataa ma taagna weli oo waxay taaganahay waxaa dhihi karaa wayar kala barka wayar soo dhaafnay keliya buurtan dhan marka laga soo tago tiyaatarkaas marka laga soo tago tiyaatarkaas hoos ku yaala oo ay tusin doona markaas sii baxayna insha Allah inta kala buurta waxay ka samaysan tahay ama goobtan dhan waxay ka samaysan tahay goob difaac oo lagu difaaci jiray halkan laga difaaci jiray boqortooyada xilligaas jirtay buurta weli xaggaas naga sii jirtaa ama qalcadii laga difaaci jiray magaaladan dabcan aragtaan oo faano la faraka ma qodno dhul badan ay noo dhiman sideed qarni oo taariikhda Malaga ay ka tirsaneed dunida islaamka ayaa ka soo bilaabatay kadib markii laga adkaaday boqorkii xilliga jiray muslimiintana waxaa guusha u soo hooyay oo hogaaminayay Taariikh ibn Ziyad Yurub inteeda kale waqtigan nidaamka federaalku si zaid ah ayuu ugu fiday marka laga reebo jasiiradda Iberia taa oo dhowr wadan la isku dhigi jiray wadamankaas waxaa ka mid ah maanta loo yaqaan Spain, Portugal, Andorra iyo qayb ka mid ah France islaamka ayaa qiimo badan ku soo kordhiyay halkan marka laga yimaado diinta iyo cadaaladda taa waxaa ka mid ah dhismaha guryaha gudaha u janjeera ee aan lahayn wajiyaal farshaxan ganacsi iyo beero oo heerkooda ugu sareeyay gaar xilligaas tilmaamahan ayaa ah qaar ka mid ah astaamaha lagu garto xilligan kacdoonkii ugu weynaa ee looga soo horjeeday dowladii Umayyawiinta wuxuu dhacay dabayaaqadii qarnigii 9 iyo horaantii qarnigii 10 kaas oo ay muslimiin kale gaalada tartan u galeen isla markaana maal iyo muruq ku bixiyeen si oo midka kale xilka ugu la wareego weliba waa laba walaalo ee wada dhashay waxa aan ka hadleyno kacdoonku wuxuu ku dhawaaday inuu fashilmo maadaama aysan jirin sabab shacabka lagu kiciyo marba haddii ay nabad ku nool yihiin isla markaana ay diinta islaamka soo galayeen intooda ugu badan boqortooyinkii gaalada tan magaalada Barcelona ugu tun weynaatay fursadooda ayay ka dhex arkeen khilaafkan ka taagan muslimiinta dhexdooda xukunkii magaalada Barcelona ayaa qoladii muslimiinta oo u tagtay ku xirtay dhowr sharuudo oo ay ugu weyn yihiin kow in ay maalin walba 100 diinaar oo dahab ah bixiyaan oo ay siiyaan boqortooyada Barcelona inta uu dagaalka socdo labo ciidanka Barcelona oo ka qayb qaadanaya dagaalka in la siiyo 1 diinaar oo dahab ah maalin walba calaa qof inta uu dagaalka socdo saddex in xukuumadda Barcelona dib loogu celinayo dhul intii hore looga haystay markii ay si wada jir ah dhulkaas u qabsadaan afar in wixii hub ah ee la qabsado ay xukuumadda Barcelona qaadanayso tan ayaa noqotay waxa ay shacabkooda ku soo jiitaan isla markaasna ay ku kiciyaan shacabkii waa intii ugu badnayd waxay iska soo qoreen ciidanka maadaama ay diintooda iyo boqortooyadooda u dagaalamayaan isla markaana mushaar ku helayaan casrigan dhexe ee aan hadda ka hadlayno waxaa loo yaqaanaa casrigii tawaa'ifta kaas oo 3 marxaladood soo maray tan koowaad ayaa bilaabatay sanadka markuu ahay 1031 kaasoo socday ilaa iyo 1106 tan labaad sanadka markuu ahay 1145 ilaa iyo 1172 tan saddexaadna 1232 ilaa iyo 1492 isjiid dheer iyo gaalisku adeegsi badan kadib muslimiintu way kala firqadeen ayagoo u kala qaybsamay 22 dowladood
kuwa oo ka kala taliyaan dhul dhan 600,000 kilomitir oo isku wareeg ah. Dhulka aan ka hadlayno waa mid wax yar ka yar dalkeena, kaas oo ah 637,000 kilomitir oo isku wareeg ah. dabcan waad dareemi kartaa halkii talisba dhul inta la eg ee kusoo aadi karo ama amiir walba uu ka taliyo. Faahfaahin intaas dheer kama sii bixin doono maadaama aan nahay tusaalihii oo nool haddii aan nahay Soomaali. waxay caan ku noqdeen dowladahan islaamka ee xilligan jiray maadaama dhul iyo dad nimcaysta ahaayeen inay ka fikiraan wax la cuno iyo wax la cabo. heeso iyo madadaalo haba ugu darnaatee fisqi waxay noqdeen dowlado yaryar sida aan hore u xusnay, kuwa weliba mid kale ee ugu dhow oo dariska la ah adawgiisa koowaad ka dhigtay. waa tan ugu daranee dowlad walba si ay usii jirto waxay dhabar ku tiirisay dowladihii gaalada oo ayaga ka tun weynaa si loogu qabto. tan nasiib darada ah ayaa waxay tahay in ay jizye bixi jireen oo gaalada sii jireen, halka aan taariikhda islaamka weligan maqli jirnay in ayada la siiyo jizye, taas oo weliba marba markii ka dambeyso lagu sii kordhin jiray. haddii aadan aqoon jizye waxa laga wado waa khidmad la bixiyo oo aan dhihi karno magangeliyo ama canshuur si aad fahanto. waxaan halkan ka baran karnaa casharo badan oo ay ka mid tahay bulsho wada dhalasho iyo diin ka dhexeyso mar haddii ay isnacdo oo ay ka noqoto kursiga ayaa ku fadhiya, isla markaana tuulo walba calan gaar ah samaysato oo gaalo isku soo adeegsato. xaaladaas maahan mid sahlan oo waa ummad jabtay iyo caadadeeda. taariikhdan ujeedada ugu weyn aan kaga hadlayno waa inaan ku tusaale qaadanaa, weliba anagoo dooranay qaybteeda murugada leh ee ma ahan udigasho iyo wax lamid ahba. maxaa yeelay xilligan waxaa islaamka soo maray mid ka mid ah casriyada dahabiga ah oo aan ku faani karno. taariikhdan oo dhammaystiran waxaa ka helaysaan internetka. haddii aadan wax akhriska waxaas aadan isku fiicnin ama aadan jecleen oo dhibkaas iyo waxaas inaadan marin, haddii aadan rabin dhibaatadaas aad maraysa haddii aad diidan tahay, waxaa kugula talin lahay inaad dhegeysato Sheekh Mustafa oo ka hadlaya. dabcan ayadoo sidaas usii faahfaahsaneen, laakiin faham guud haddii aad rabto inaad ka heshid taariikhdan gobolka Ingiriisiga caasimadiisa labaad ee tahay hadda magaaladan aad joogo Malaga. haddii aad raadin kartid oo internetka ka raadin karto akhriska jeceshahay waa helaysaa. haddii kaleentana Sheekh Mustafa YouTube kaliya ku qor Sheekh Mustafa Ingiriisiga hadaa arkaa markaas ma faham guud sida ugu heshid waa kaa. waad ku mahadsantahay daawashadaada. mar haddii aad muuqaalka intaan nala soo gaartay, fadlan haddii aad horey noola joogtay like inoo saar. haddii aad nagu cusub tahayna nagu soo biir. intaan muuqaalka xiga ku kulmeyno waxaan kaaga tegayaa amaano Allah.